Assalaamu calaykum. Waxaad ka ogtahay dalalka adduunka ka jira qaybtii saddexaad Soomaaliya waa dal dhaca bariga qaaradda Afrika ee aagga loo yaqaano Geeska Afrika. Waxay xad la wadaagtaa wadamo badan oo ay ka mid yihiin Yemen oo ka xigta dhanka gacanka cadmeed, barina waxa ka xiga Badweynta Hindiya, dhanka galbeedna waxa ka xiga Itoobiya, koonfurna waxa ka xiga Jabuuti, galbeedna waxa ka xiga Kenya. Soomaaliya bedkeedu wuxuu gaaraa 637,540 kiiloomitir laba jibaaran. Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika, bedkeeda wuxuu dhan yahay 3,330 kiiloomitir. Waxa ku nool dad ka badan 15 milyan oo qof. Maalintii madax-bannaanida Soomaaliya waa maalin qaran oo lagu xuso waddanka Soomaaliya iyo gobollada waqooyi ee maanta loo yaqaano Somaliland ayaa 26 Juun sanadkii 1960 ka qaatay gumaystigii Ingiriiska ee ka talin jiray British Somaliland. Maalmo yaroon kadib, koonfurta Soomaaliya ayaa madax-bannaanida ka qaadatay Italian Somaliland. Ugu dambayn, 1 Luulyo sanadkii 1960 waxaa midoobay gobolladii waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya, halkaas oo lagu aasaasay dowladdii iyo maamulkii ugu horreeyay ee geyga Jamhuuriyadda Soomaaliya. Sida sharciga ah, waddanka Soomaaliya wuxuu u qaybsamaa 18 gobol. 6 ka mid ah waxay ku yaallaan Somaliland, halka inta kale ay u kala baxaan maamul goboleedyo sida Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed Soomaaliya, Jubbaland iyo tiro kale oo cusub.